dadka sida loo badan yahay wacyigeyn ma joogo waxay noo joogtaa مثلا labada qof baa isguursanaya ilmaha la dhalaya hadiiba uu guriga soo survive garoobo ilmuhu waa iska dhalanaya hadhow markuu soo gaaro waqti ilmuhu iskuul gaaro waxa laga yaabaa dadka deriska weynaa ma iskuul geey waalidku wali baraarugi ma joogo soo iskuulka la geenaya iskuulka markii la soo geeyo iskuulkana waxay joogtaa ilmaha galaaska la geeyo fiigana laga bixiyo macallinkana galaaska ku mashquuliyo sidii uu ku soo weynaanaya primary sidii kaga gudbay high school buu tagay asagoo aan habkii guriga uu kaga soo noolaa waxba iska bedelin buu tagay si wanaagsan waxa ugu daliila يعني waxaan daraasaynay klaaska 8aad taank laga qaaday 2017 sano standard 8 ama klaaska 8aad taank laga qaaday waxa fiirin maadooyin muayana مثلا أنا ضد مسلمين أنا هاي وحقوق بربعين بالشيء إنه نقطة بالشو مسلمين ودقن كذا يا أخلاق ذي دين هذا بس هو المهم مركز صوت دياري أو صوت صعده كوم تشوف وحرك سامع دورين كمهم كمثلا تربية ذا كمتاعي وكذا 23 بالها زي أفريج ما إلا أنت الصنع العرس كذا أنت صار مكان العرس مركز أنت صار أرضي وقشي كلاسكي ستاندرد 8 ك تربية ذي قشي وهير كذا أنت مرسو صار markuu soo galo dugsiga sare yimaado trainkii baa soconaya jaamacadu sii aadaya jaamacada markuu galo wuxuu sameeynaya marka asagoo aan diyaarsanayn ardaygii buu wuxuu sameeynaya numberku xisaabinaya sano primary ila secondary wuxuu soo xisaabinaya 12 sano jaamacada markuu joogana 4 sano u tirsanaya laakiin tirin ma hayo waxa uu faa'iideeyo waalidkiina uma xisaabsanaa sida loo badan yahay wacyiga ma joogo waxbarashaduna xoogaa waxay iska noqotay private aan la controlling dawladana doorkeedii waa yara jilicsan yahay kadib marka waxa soo dhacay ilmo markuu jaamacada ka soo baxo procedure ba iska noqotay la iska maro ama dariiq lagu fulo marka back to square one wuxuu ku soo laabanaya guriga uu ka dhacay horta issue-ga ugu weyn waxa weeye marka saddex arrimood waalidka oo aan wacyigiisu dhisnayn celcelis sida loo badan yahay iyo dawladda oo rool adag oo iskooladana ay ku xakamayso waalidka iyo bulshadana ay ku jahayso oo meesha ka yara daciif arinta kale soo qortay waxay tahay waxbarashadii baa waxay noqotay hooyo laga yaabo inay caana gado ama laga yaabo inay qudaar gado ama laga yaabo inay duruufo kale la tacaamulayso oo intaas oo sano inta ilmo jaamacad kaga soo saartay haddana ilmihii oo guriga leeyahay hooyo berberka ii soo dir waa arin very sad marka waa culaab bulsho ilaa iyo intii la helayo exit laga baxo oo kaartada lagu jaro silsiladaana waxay u egtaa wala iska daba wareegaya